arday ayaa ka qayb galay muxaadaro dhanka maadada xisaabta ah. Intii ay socotay muxaadaradii ayuu gamay oo u hurday. Markii ay dhammaatay muxaadaradii ayuu ku soo toosay buuqii iyo qayladii. Waxa uuna sabuurada ku arkay 2 su'aalood si degdeg ah ayuuna u qortay si uu uga shaqeeyo. Waxa uuna u qaatay in macallinku ardaydu shaqo guri uga dhigay si ay u soo shaqeeyaan, waana uu iska baxay isagoona qof la hadal, maadaama ardaydu ay wada baxday. Markii uu gurigiisa tagay ayuu 2dii su'aalood isku dayay inuu ka shaqeeyo. Xaqiiqdii waxay ahaayeen kuwo aad u adag. Maktabadii jaamacadda ayuu la tagay. Muddo 4 maalmood markii ay ku qaadatay ayuu su'aashii koowaad furfuray oo uu ka shaqeeyay, isagoo u cadhaysan macallinkii su'aasha adag u diray ardayda. Maalintii dambe markii la soo noqday ayuu macallinka u yimid oo uu ku yidhi, macallin, su'aalihii mid keliya ayaan ka soo shaqeeyay, waana ay u adkaadeen, waxaana ay igu qaadatay 4 maalmood. Waxaan doonayaa inaad waqti dheeraad ah iigu darto si aan su'aasha labaad u soo jawaabo ama aan u soo shaqeeyo. Macallinkii oo yaaban ayuu ku yidhi, war 2 su'aalood idinku ma idin tirin inaad ka soo shaqeysaan? Waxay ahaayeen 2 su'aalood ee aqoon-yahanadu xisaabtu ay jawaabtoodii ku wareereen ilaa haddana xalkoodii aan la helin. Haddaba ogow, ardaygaasi waxa uu ka shaqeeyay su'aashii ugu adkayd. Sababtuna waxay ahayd isagoo aan aaminin in uu ka shaqayn karin. Ardaydii kale midkood iskuma dayin, waayo waxaa loo sheegay in khubaradu xisaabtu ay ku daaleen. Ma jirto wax adagi, howl kasta waa aad ku guulaysan kartaa haddii ardaygu soo jeedin lahaa oo macallinku uu maqli lahaa. Iskuma dayin inuu ka shaqeeyo, waxa uuna aamini lahaa inay adag tahay.